منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله إلهي بانكم مهدنينا ولا ليال بشا بركيسا إنك عافماد هينا ونودينا هينا إلها نسو قارسيي بانكم مهدنينا waa inay nicmadaasi qalbigeenna ku weynaato adoo beled aamina joogo waddankaagii aamin uu yahay jirhkaagiina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wacalaa bisha rabadaan ku soo gaadhsiiyey waa inaad ugu mahadnaqdaa dad badan baa kal hore inala soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaana way ka intiqaaleen dad badan baa kal hore iyakoo caafimaad qabuu rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxaa laga yaabaa inay bukaan ay yihiin ay jiifaan marka waa inaa nicmadaasi ay qalbigeenna ku weynaato ilaahay baa le wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana la daluumun kafaar baa ilaahay yidhi haddaad damacdaan nicamta ilaahay inaad tiro ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan baa ilaahay yidhi runtiina waa bil aada u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumca jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo maaragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadayaa oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid waa kii lahaa maalmihiina ay nagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maalinta jumcada shan khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khasladda koowaad buu nebigu yidhi abuna aadam calayhi salaam maalin jimco ayaa nebi aadan la abuuray maalin jimco ayaa jannadana la geliyey maalin jimco ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxaa ku jirta buu nebigu yihi saacatulijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nebigu yihi saacadda qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jamce waa nicam weyn weeyaan ilaahay inaan ugu mahadino weeyaan habeenkii ugu horreysay bishani ay bilanaysay waxa uu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dembi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoraynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrkee soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaadda taraawiixda soo qaabil oo qur-aanka akhriskiisa soo qaabil oo kahratu lkhayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helaye soo jeesa buu leeyahay malagaasi soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir kii dembiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayow bishani bishii ilaahay la caasinaye dembiga la laaqanayay ma ahayna ka joogsa buu leeyahay oo ka gaabso waa bisha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fii riwaayatin albaabada raxmadda ayaa la furaa albaabada naarahana waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaaiinna waa laga xidhaa bini aadanka
وبشا كليا إلهي جل وعلا قرآنك وكشيغا مقعيغا شهر رمضان وبشا ما ركتان اللي يري وبشا قرآن كنا أوسودقي وبشا كليا النبيين او يري habeen kasta oo bisha Ramadaan kamid ah nabigu waxa uu Ilaahay leeyahay adooma uu naarta ku xoreeyo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkeega bisha Ramadaan fadliga ay leedahay waa bisha kaliya ee nabigu uu yiri maradatu shayaatiinna waa laga xidhaa bani aadanka waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee quraanka Ilaahay uu sida gaarka ugu amaanay ee uu yiri inna anzalnahu fi laylati alqadr tobanka damana Allah ina gaarsiiyay waa bil aad u barakaysan oo xurmadeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيغ فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلهينا واكلها حديث القدسي صومك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدونك كعب المرين دونا وابشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمك إنتو نن أفرين وحا أوليه دعاء أقبله ومرك عداد أي سيد عيسو هذا فرق ودي أرجروبي سحلق دعاء والله أقبلايا باهد هذا إلهي وشيقو صومك وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهوات النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصد أيو قاشان كاغا نقونيا حنونا دختردو أي دوين كريوايان أي بشر رمضان أي دويسا بل دخترada ay waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yartihiin waxay ku oranayaan bisha Ramadaan baan ugu shaqo yarnahay nin doctor oo maalin ka hadlaya ayaa yiri bishii caafimaadka timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yiri wuxuu yiri bisha cid noo timaado ma ba aragnay buu dadka bukaanku way yaraadaan bishii caafimaadka waa bishii Ilaahay tabaaraka wa tacaala loo dhawaanayay وبشي دم بدافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نينكا صوم ابو نبي غليه مالين كاستو او بشا كميدا نينكا صوم ابو نبي غليه دنبيغيسي هورنا waa loo dhaafaya man saama ramadan bisha ramadan ninka sooma iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkan inuu yahay amar Allah xaqiisa ka yimiday احتسابنا ومحي أجرك يا ثوابكنا إلهي تبارك وتعالى كدل بايو إلهي كرجينا يا إنه إلهي كأبا المريو دنبيجي سي هراء أردن والله قد دافع النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نك بشهر رمضان صلاة تراويح ذا أكعب النبي عليه الصلاة والسلام سقوا إلهي كوكل صونو إيمان قبه واحتسابا أجر يا ثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجينا يا أجر وكسي عبادة أساقنا دنبقي هوري وقد عايو دنبا لقد دافابو نبي عليه الصلاة والسلام وابشأ نبي يري عليه الصلاة والسلام هدي متكينو أفرايو تمرها كو أفرابو نبي تمر هدي تمر واينا بيها عادها كو أفرابو رسولكو يري شريعة الإسلام هو عجيب لبدانا الدواء كجرته أقو تمرتا محو نبيقو تمرتا وهو الرئيسيي وحال عنتدى إلى هاي دولك أو كسو صار أردن مذ والب في تاميقا كجرتا أيا تمرتا أردن إلى هاي كو أبو ريبا ليدي هيلبك في تاميقا كجرة تمرتا واللغا هلايا عانها في تاميقا كجرة تمرتا واللغا هلايا بريسك في تاميقا كجرة تمرتا واللغا هلايا وحليا وحا نباتات يا خضروات يا ماركتان نعم إلى هاي بن آذن كأوسيي عنيان مد والبا قارهان في تاميقا سيقارا إيضا اللوغو أبوري أيا إلى هاي انتو سو جمعيبا إلى هاي تمرتا ينوصو دحقلي
timirtu waa nicmadda muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka o dhan ku gaadhsiiyeen asxaabu muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waradia allahu canhum ajmaciin markay risaaladda muxamediyada ay xambaarayeen ee adduunyada gaadhsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaato taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay odhan jireen aqalka timir aynan oolinna faqri baa aqalkaa yaalla markaa buu nebiguna leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow haddaad soontid buu nebigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro hadduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa daahir buu nebigu yihi oo macdada jidhkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay bannaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhowaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhowaanayaa dembi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoraynaya darajaadkaagaa kor loogugu qaadaya caafimaadka ayaa kuu siyaadaya waa bishii qur'aankuu soo degay weeyaan nebigeenna moxamed calayhi الsalaatu wasalaam jibriil calayhi الsalaam intuu u yimaado ayaa isagii jibriil bishaa ramadaan qur-aanka ay darsi jireen qur-aanka ayay akhrin jireen qur-aanka marka inakuna waxaa laynaga doonayaa inaan bishaa maalinteedana aan wakhtigeenna aan buuxinno oon cibaadada iyo salaada iyo qur-aanka iyo dikriga iyo daacadda ilaahay iyo mudaarasata alcilmi aan ku buuxinaa laynaga rabaa habeenkiina salaatalleyl iyo munaajaad iyo salaata taraawiix inaan wakhtigeenna ku buuxinaa laynaga doonayaa laba meeloodba shayddaankaa gala bay culimmadu yidhaahdeen wakhtiga madhanna shayddaanka ayaa dega aqalka madhanna shayddaanka ayaa dega marka qofka muslimkaa la dooni maayo wakhtigiisa inuu ka dhiga firaaq bal firaaqa wakhtigaaga ka ilaaliyo oo buuxi oo maxaan ku buuxinaynaa waxaan ku buuxinaynaa bishani maadaamay tahay bishii qur-aanku uu soo degay qur-aanka akhriskiisa ayaan badinaynaa maadaamuu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam bisha malakuljibriil intuu u yimaada qur-aanka ay wada darsi ay jireen inakuna bisha ramadaan waxaa la doonayaa qur-aanka inaan darsino ood ugu yaraan bal maalintii hal juz oo qur-aan aad akhridaa si bishaa ramadaan qur-aanka mar aad u khatimtaa haddaad saddex juz maalintii aad akhridana waxaad khatimaysaa 3 jeer baad qur-aanka khatimaysaa haddaad 5 juz aad akhrida qur-aanka maaragtaane maalin kastana 6dii maalmood baad qur-aanka ku khatumaysaa oo laga yaabaa bishaa ramadaan inaad khatimto maaragtaane 6 jeer 7 jeer cuثmaan binu cafaan radia allaahu canhu ayaa odhan jiray haddii quluubtiinu daahir ay noqon lahaydna qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen buu odhan jiray qur-aanka akhriskiisa kamaad daasheen lidaalika waxaa salafu saalix culammadu ay sheegaan saxaabada maahayna dadkii ka dembeeyey xataa taabiciintii taabicu taabiciin ilaa yowmina haada dad waxaa la helayaa qur-aanka maalintii mar khatimaaya qaarkoodna 2 jeer bay maalintii qur-aanka khatimaan oo waa la helaa imaam ashaafici raximahullah ayaa laga sheegay inuu bishaa ramadaan 60 jeer qur-aanka uu khatimayay 60 jeer innaguna maanta maxaan ka sheekaynaynaa muslimiinta maanta weliba bishan ramadaan iyo maalmahan sheekada inagu badan waxa weeyaan xanuunkaa yaree adduunka lagu sheegay maanta ee dadka o dhan ka cabaadsiiye ka qaylisiiyey labadii isku timaadaba xanuunkaa bay ka sheekaynaysaa maanta yaa leyt sida xanuunkaa aan u hadal hayno haddaan ilaahay u hadal hayn lahayn oon qur-aanka u akhrisan lahayn oon istikfaarta u badin lahayn oo ilaahay dikrigiisa u badin lahayn lakaana khayran khayr baan ku sugnaan lahayn man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonka aniga keligii xasuusta baa ilaahay leeya keligay baan xasuusan addoonka jamc igu dhex xasuustana jamca uu igu dhex xasuustay jamc ka khayr badan baan ku dhex xasuusan baa ilahay yidhi xadiis alqudsi natadaakar intaad wax kale hadal haysid makhluuq intaad hadal haysid waxaad inaad hadal haysa kula quman oo kuu fiican inaad ilaahay la munaajootid saalixiinta waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaanna way dhibsanayeen markay keligood meel ay fadhiistaanna waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo keligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay qur-aankiisay akhrisanayaan qur-aanku waa kalaamki ilaahay waa mawcidadii ilaahay oo caalamka u jeediyey haddaad doonto adigu inaad ilaahay aad la hadashidna baa la yidhi salaada tukog
وقفك تكوني إلهي بولمنا جونيا هداد دونت إلهي وإنه أديك كلها لنا قرآن جيسك الله فرق قرآن إلهي أخرسه صحابة رضي الله عنهم اسكدا مساجد كدحدي دي meelaha majaalista ay leeyihiin markay fadhiyaan waxay maaragtaane ay dhageysanayeen mar walba inay ilaahay isxasuusiyaan oo aakhirada isxasuusiyaan oo saacada qiyaamada isxasuusiyaan fi sunan waxa uu nabigeenu sheegay wuxuu sheegay imaam muslim rahimahullah rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam ayaa saxaabadiisa qaar kamid oo meel fadhiya ayuu nabigu u yimiday markaa buu nabigu ku yidhi maxaad hadal haysan bal ii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankii waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa annaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaa buu nabigu ku yidhi innaha lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha 10 aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam 10kaa calaamadoodi waa calaamaatul kubra ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqra iyo kuwa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqra laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam فذكر الدخان والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وحو رسول كينو يري ساعد قيامته ما دعي دونتو إلى الله أركو 10 علامات مركب النبي شيغي قيق سمد كيمن يبو نبي شيغي كما في نص القرآن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وحو نبي شيغي قيق سمد كيمن يبو نبي شيغي وحكلو نبي شيغي دجال بو نبي شيغي عليه الصلاة والسلام وأدوية بقعد كما تالو إلا دجال أمريا dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharru ghaa'ibin yuntadar ayuu nabigu yidhi faddajaal fa sharru ghaa'ibin yuntadar aw is-saa'a wa saa'atu adha wa amar dajaal buu nabigu sheegay inuu imanaya aakhir zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين أحاديث الدجال كصابسا مرقو نبيقو وقور رمايو وحي إلادين وحان موذي جرني سدا وهذا النبيقو قلوب تهدى أساميني درتنا قدام بيس إنو الدجال كجرا نماليني أصحابتو إلادين وأكوني أفر بغلو سنة كهر ويان وحاس ونبيقو كور رمايو إنك أنا ما تزمك أنا كور رما كورونا فيروس ما مات عالم كنا وريريو لهذا الحياة حنون أمر إلهي كالسعودة وجند من جنود الله وقفك إلهي وقلت لك لما أنا قفك الآن كل عين أي عالم كودا لابد يسكت ما دمانت كشا كيسان إيسا صحابتنا كوني أفر بغلو سنة كهر وحي كشا كيسان دجال إنو صو سعودو مركو النبي قد دجال وغشا كينا ينا بيد هذين وحنون ملينيني يقين تخبر كالنبي قاي أقبان درتنا قدام بيس الدجال إنه كجرانو ملينين أصحابته إلادين دجال بنبي وشيغينو أدون كودان مرايو جنة النار وحوي